adduunyadu waa taariikh wixii tegay way xustaa waxa dhacana waa ay qortaa waxa dhici doonana waa ay sugtaa ummad kasta oo dunida ku nool waxay leedahay dhacdooyin taariikheed oo soo jireen ah oo ay ku dhaataan ama ay ka dhidiyaan waana laba midood taariikh ximbaarsan baraare iyo himilooyin wanaagsan oo la hantay ama taariikh ximbaarsan tiiraanyo dhiilo ama xasuusreeb ah soddonkii bishii January ama Janaayo sanadkii 1984 waxaa weerar dhanka cirka ah ee Soomaaliya ku soo qaaday diyaaradihii xabashida gaar ahaan iyagoo duqeeyay magaalada Boorama ciidamadii cirka ee xabashida waxay weerarkaasi ku burburiyeen guryo ku yiilay magaalada sidaasi oo kale waxay burbur xoogan u geysteen iskuulo hoose dhexe iyo malcaamado dugsiyada quraanka wax lagu bartaa waxayna halkaasi ku xasuuqeen arday u socotay iskuulaadkooda xabashida ayaa weerarkaasi ku xasuuqday 34 arday oo da'doodu lagu qiyaasay 6 jir ilaa 14 jir iyo 4 macallimiintooda ka mid ahayd halka dhaawaca uu kor u dhaafayay 39 arday iyo 5 macallimiintooda ka mid ahayd sidaasi oo kale weerarkaasi waxaa ku nafwaayay 4 hooyo oo ku sugnaa xarunta MCH-ka ama xarunta nafaqeynta hooyada uurka leh hooyadani waxay caruurteedii u dirtay aroortii hore malcaamada quraanka laakiin waxay ka war heshay caruurteedii oo gantaalo cirka ugu soo gamayaan xabashida haddaba wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliya Sareeye Guud Maxamed Cali Samatar ahaana wasiirkii gaashaandhigga ee Soomaaliya iyo wasiirkii madaxtooyada gaashaanla sare Muuse Rabiic Good ayaa booqasho ku tagay Boorama waxaana safarkaasi ku wehelinayay safiiradii Soomaaliya u joogay dalalkooda iyagoo soo qiimeynayay wixii halkaasi ka dhacay inkastoo dawladdii xilligaasi jirtay aysan ka bixin jawaab ama falcelin xasuuqii loo geystay caruurtaasi iyo macallimiintooda ubaxa u ahaa dalka haddaba markii uu Samatar gaaray magaalada Boorama wuxuu halkaasi kula hadlay dadweynihii magaalada ku noolaa wuxuuna yiri danahooda raacanayay cidina aanan ku gardaroonin caruur yar oo ardaa oo baranayay ama qaarkood waxa laga yaabaa darsiga ay qaadanayeen markaa inuu ka mid ahaa duruus diiniya dad shacab caadi u nool noloshiisa caadiya ku jiro magaaladiisa ku nool sida foosha xun loo laayay haddaba gabagabada barnaamijkan xasuusta maanta oo kale waxaan ku soo afjarayaa sawirada qaar ka mid ah ardaydii ku nafweyday xasuuqaasi oo xabashida u geysatay